السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد السلام ومركل يوم قالدين تحنا عافيمات كبلشدة وأن تضوات كان كجهل دونه خلق الكديج عادة أما عادة وريركا وحسوي على مدى لو قرتو سيد لو جهرتي كرو سيابها دبيعي قاعد كلها تعالي كرتيد يولي بتلوين مهمة وعنفع دونه كفو البكاء عنا عادة وريركا guud ahaan caado wareerka ama qalqalka dhiigga caadada waxa loo kala saaraa ama loo kala qaybiyaa afar qaybood. caadadu gabi ahaan la waayo 3 ilaa 6 bilood ama wixii ka badan. caadadu muddo dheeraata ama dhiig bax leh. caadadu isku soo dhawaata bishii 2 jeer ama ka badan. caadadu kala fogaata 35 cisho iyo wixii ka badan. intaba maanta ayaan ka hadli doonaa hadii uu ayba noo ogolaado. ugu horeyntii waxaan ku hormarayaa caadadu la waayo 3 ilaa 6 bilood ama wixii ka badan. xaaladan waxaa loo yaqaanaa amenorrhea. amenorrhea ama caadadu gabi ahaan la waayo waxaa loo kala saaraa laba qaybood: primary amenorrhea iyo secondary amenorrhea. primary amenorrhea waxa weeye inantu aanan helin dhiigga caadada siday u qaangaartay ilaa haatan. secondary amenorrhea waxa weeye qofka dhiigga wuu helay muddo kadib ayaa waxa ku imaanaya gaab ama ka istaagaya dhiigga 6 bilood ama wax ka badan. xaaladaas waxaa loo yaqaanaa secondary amenorrhea ayaa loo yaqaanaa. waxaan ku hormarayaa primary amenorrhea ayaa ku hormarayaa ama inanta markay qaangaartay kadib aan dhiig helin. xaaladan waxyaabaha ugu badan ee sabab waa genetic ama familkii oo dhaxal u leh in yacni caadadii ay ka raagto. sidoo kale waxaa keeni karo xanuun loo yaqaano Turner syndrome oo inanta ay ku dhalanayso ama qofka uu ku dhalanayo hal chromosome oo galmaha ama sex chromosome oo hal xaba ah. sidoo kale waxaa keeni karo wax loo yaqaano androgen insensitivity. xaaladan waxa qofka ku badanayo hormoonka androgenka ayaa ku badanayo. sidoo kale waxaa keeni karo xaalad loo yaqaano Mullerian defect oo yacni xubinta taranka ee habeenka oo si qaldan u abuurma. waxay dhalanaysaa marka in xubnihii sida fallopian tube-ka tubooyinka ugxaanta ka soo qaada ugxansidaha ee minka keenay loo yaqaano fallopian tube-ka ama minka naftirkiisa oo si qaldan abuuran ayay dhalanaysaa. intaas kadib haddii aan u gudbo secondary amenorrhea ama qofka caadada si caadi u heli jiray oo dib ka waayay 6 ilaa iyo 1 sano ama wixii ka badan. xaaladan waxyaabaha ugu badan ee sababa waa xanuuno keena ama xanuuno badiya hormoonka loo yaqaano androgenka. xanuunadaas waxaa ka mid ah PCOS, xanuunka u yaqaanaan PCOS ama polycystic ovarian syndrome. xanuunkan Soomaalidu waxay u yaqaanaan burubiyood, dadka qaarna waxay u yaqaanaan fiixda ugxansidaha ay u yaqaanaan. sidoo kale waxaa keeni karo xanuunka Caucasian oo wuxuu badanayaa xanuunkan hormoonka loo yaqaano cortisol ayuu jirka ku badanayaa. sidoo kale waxaa keeni kara kansarka ku dhaca ugxansidaha ama ovariga ayaa keeni karo. sidoo kale waxaa jira xaalado badan oo keena sida naasnuujinta, uurka iyo qofka marka uu gaaro xilliga dhalmagoyska intaba caadada way ka istaagaan. sidoo kale waxaa keeni karo hadii uu qofka miisaankiisa uu yar yahay markii body mass indexkiisa markii la cabiro ama culeyska jirkiisa iyo dhirirkiisa marka la isku eego hadii uu 19 uu ka yar yahay qofkaas waxa soo wajahayo qalqalka dhiigga ayaa soo wajahayo. hore ayaan uga soo hadlay body mass index ama culeyska jirkaaga marka loo fiiriyo dhirirkaaga. fadlan hadii aad inaad ogaatid hadii aad doonaysid channelkayga waad ku laaban kartaa waad ka helaysaa. sidoo kale waxaa keeni karo hadii yacni ugxansidaha uu shaqadii uu gabo ama ovariga shaqadiisii uu gabo. waxaa kaloo keeni karo qalabka looga hortago uurka. sidoo kale waxaa keena badashada hormoonka loo yaqaan prolactin oo ah hormoonka caanaha soo saara. waxaa kaloo keena xanuunada ku dhaca qanjirka loo yaqaano pituitary ama pituitary glandiga. stresska ama walwalka faraha badan wuu keenaa. calaamadaha lagu garto waxaa ka mid ah hadii qofka caadada ka guurto ama caadada muddo badan ee ka maqnaato waxa isku arkaa timaha ka daata ama ka gurmo isku arkaa. sidoo kale waxa isku arkaa wajiga oo xaad ama finan yar ka soo baxdo, madax xanuun ziyaada ayuu isku arkaa, naadku caana ka soo dareera ama aragga oo xumaado. sidoo kale wuxuu xanuun ka dareemaa qaybaha hoose ee jirka ayuu xanuun ziyaada ka dareemaa. intaas kadib waxaan rabaa in aan u gudugalo siyaabaha dabiiciga aad kula tacaalaysid. ugu horeyntii waa inaad cuntaa cunooyin ay ku badan yihiin maadooyinkan sida zingaha iyo ironka. maxay la hadii qofka maadooyinkaas jirkiisa ku yaraado waxa ku yimaada qalqalka dhiigga caadada ayaa ku yimaado. marka maadooyinkaas cuntooyinka laga helo waxaa ka mid ah kalluunka, looska, tufaaxa. sidoo kale waxaa ka mid ah afkaadhada ayaa ka mid ah iyo ukunta ayaa ka mid ah.
marka sidoo kale waxaan qaadan kartaa iyagoo supplements ama kaniin aan loo soo diyaariyay sidoo kale waa inaad isticmaashaa ama isku dartaa qaando oo qorfi ah qaando heela iyo xad yar sanjabiil markaad budaysid kadib waxa soo qaadanaysaa koob oo tomato juice ah waa isku qasaysaa deedna waxa maalinta 2 jeer ayaa isticmaalaysaa waxa isticmaalaysaa marka periodka uu ku soo dhow yahay ama xilliga dhiigga aad heli jirtay ama markuu ku soo dhow yahay aad isticmaalaysaa sidoo kale waa inaad isticmaashaa sisinta maxaa yeelay sisinta waxay isku dheelitirtaa ama ay ka howlgashaa hormoonada soo saaray dhiigga caadada marka waxa isticmaalaysaa subax walba ayaad cabaysaa xilliyada dhiiggu ku jooga ama periodka xilliyada heli jirtay sidoo kale waa inaad isticmaashaa babaayga erinka ama babaayga aan aadka u bislaanin inaad weel yar ku jarjarto ayaa malab ku shubaysaa caadi ayaad cunaysaa wuxuu isku dheelitiraa ama uu saxaa hormoonada soo saara dhiigga caadada maxaa lagu daweeyaa maqnaashaha dhiigga caadada daaweyntu waxay ku xiran tahay waxa sababo haddii inanta siday u qaangaarta aan helin waxa dhiig ah dhakhtarka waxa u diri doonaa baaritaano oo xagga hormoonada ah sida hormoonka loo yaqaano follicular stimulated hormone ama FSH luteinized hormone sidoo kale waxa u diri doonaa thyroid stimulating hormone dhammaan hormoonada baaritaano ayaa loo dirayaa sidoo kale haddii qofka secondary dysmenorrhea uu yahay ama qofka sida caadiga dhiigga u heli jirtay uu dhex u ka istaagay ama 3 bilood ilaa 6 bilood ama waxa ka badan qofkaas sidoo kale aadan gaarin xilliga dhalmagoyska uurna aadan lahayn miisaanka jirkaagana uu yahay meeshii looga baahnaa ama BMI-ga uu saxan yahay aad cuntid cuno isku dheelitiran wax walwal ama stress oo ku haynin oo wali dhiigga uu ka maqan yahay waxaad u baahan tahay in aad la xiriirtid dhakhtarka qaabilsan xanuunada dumarka si baaritaano loogu sameeyo dhakhtarka baaritaano dhowr ayuu ku dirayaa hormoonada kaadida iyo dhiigaba kadib baaritaanada kadib haddii uu dhakhtarku xaqiijiyo waxa kugu sababay in uu caadada ka istaagto daaweyn ayuu ku siinayaa intaas aanu ku soo gabagabeynayaa la soco qaybta labaad meeshin ku dheh ama xagga hoose ugu wac qof walba aad jeceshahay in muuqaalkan uu ka faa'iideysto share garayna